waa kooxda Moscow ee ka dhisan xaafadda Cabaye degmada 26 Juun ee magaalada Hargeysa. kooxdan ayaa waxa ay ka mid tahay kooxaha heerka labaad ee magaalada Hargeysa ka dhisan balse aan hoos imanin wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland. barnaamijka socdaalka malcab ayaa aanu toddobaadkan ku soo gudbin doonaa booqasho aanu booqanay kooxda oo ka soo noqotay fasax 2 bilood ay kooxdu ku maqnayd iyada oo dib u bilowday aalamiito bixinta halkaas oo macallin Yaxye Cabdalla Jaamac uu aalamiitada kooxda markaasi uu bixinayay. barnaamijka ayaa sidoo kale kooxda iyo guud ahaan maamulka kooxda Moscow ay soo gaarsiiyeen fariin ay mahadnaq ballaaran uga dirayaan halkan macallin Sakariye Cabdi Aadan oo ah laf dhabarta kooxda Moscow oo ay halkan uga mahadnaqayaan. intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii socdaalka malcab ee aanu booqanay kooxda Moscow oo ku guda jirta aalamiito bixinta xilli ay ka soo noqotay fasax 2 bilood ay kooxdu ku maqnayd isla markaana aan halkan uga mahadnaqino kooxda maamulka iyo sidoo kale maamulka garoonka Dalooda ee xaafadda 150 waa degmada 26 Juun ee magaalada Hargeysa. tan iyo kulan dambe barnaamijka socdaalka malcab oo kale inta aynu ku kulmayno haddii Allah awood leedmo waa dhammaan bahdii malcab iyo anigu Axmed Taya Qarana oo isku duubanoo idin leh nooli kulante. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.